wafdigii uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Soomaaliland ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta maalintii shalay had ku soo saxeexay heshiis saddex geesood oo ku saabsan arrinta maalgelinta dekedda caalamiga ee Berbera ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay. Dr. Saad Cali Shire wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ayaa markii uu ku soo laabtay magaalada Hargeysa waxa uu ka warbixiyay heshiiskaasi dhex maray Soomaaliland, Itoobiya iyo sidoo kale shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. wasiirku waxa uu sheegay in Itoobiya oo qayb ka noqonaysa heshiiskaasi ay bixin doonto 80 milyan oo dollar oo qayb ka ah maalgelinta dekedda magaalada Berbera. shalayto oo ay bisha March ay ku ahayd waxaanu saxeexnay laba heshiis oo aad iyo aad u muhiim ah oo taariikhi ah oo midna saddex geesood ahaa midna laba geesood ahaa. heshiiska saddex geesoodka waxaanu ku galay Somaliland, dawladda Somaliland oo kaanu matalaynay, iyo dawladda Itoobiya iyo shirkadda DP World ee ku taala Imaaraadka ka soo jeeda Imaaraadka. wada hadalka heshiisku muddo dheer ayuu runtii u soo socday. wuxuu noo suurtagelinayaa heshiiskaasi sidii loo ballaarin lahaa dekedda. waa la socotaanoo dhaqaalaha geeskan Afrika aad iyo aad buu u korayaa, dhaqaalaha iyo dadkuba runtii aad iyo aad bay u korayaan. waxaanu u baahan yahay dekedda aad badan buu u baahan yahay, mid iyo lababa ka badan runtii baahidiisu. marka baahida insha Allah faraha badan leh waxa dhoofay waxa soo degayaba ay dabooli doontaa dekeddu marka la ballaariyo saddex qol iska kaashadaan. heshiiska kale waxa laba geesood oo heshiis ay kala saxdeen dawladda Somaliland iyo shirkadda DP World oo ku saabsanaa curunta iyo samaynta suuqa xorta ama free zone ka waxa loo yaqaano. free zone kaasi aad iyo aad buu muhiim u yahay. waa meesha runtii shirkaduhu ay isugu yimaadaan ee shaqada laga abuuro, goob shaqo abuur ay noqon doontaa insha Allah biidhnillaahi alkariim. kaana waxaan rajaynaynaa in isaga laftigiisa dhismihiisa la bilaabo sanadkan. mashaariicda waxa loo bilaabayaa sanadkan baa la bilaabayaa insha Allah biidhnillaahi. dabcan markii Itoobiya saami ku yeelatay waxa iyadu markaa ay bixinaysaa intii kaga soo hagaagtay maalgashiga loo baahan yahay shirkadda ilaa 80 milyan oo dollar. Itoobiya doorta waxa weeye waa suuqa aynu doonayno inay isticmaasho dekedda inaka Soomaaliland imka sida tahay insha Allah wanagu filan tahay, laakiin cidaynu doonayno inay isticmaasho runtii way Itoobiya dekedda badan u baahan. marka waa isticmaalka dekedda iyo khadamaad aynu sameynayno imka ganacsiga inaka Itoobiya naga dhaxeeyay dhinac buu ka reeran yahay. inagu xumeynu ka soo iibsanay waxba kama iibino, marka waxaynu ku bedelaynaa wax way khadamaad inaynu sameeyno. dabcan dawaanay maal gashanay. Aggeesta kale wasiirku waxa uu ka hadlay heshiiskii dhex maray Somaliland iyo Imaaraadka Carabta ee ku saabsanaa arrinta saldhigga Imaaraadka laga siiyay magaalada Berbera, taasi oo hakada gelisay xukuumadda Muuse Biixi Cabdi. wasiirku waxa uu sheegay in arrintaasi ay tahay arrin farsamo balse aanu jirin isfaham waa kale oo ka dhex taagan Somaliland iyo Imaaraadka Carabta. dawladda hooseyada ka mas'uula amniga meesha oo wixii amni xumo ka iman karto dabcan waa ka mas'uul. dastuurkuna wuxuu siinayaa awooduu siinayaa dawladda hooseyada maayarkaba intaba. hase yeeshee wax mashruuc istaagay yani hawshii socotay rasmiyan xag siyaasadii iskama taagin, xag farsamo ayaa jirto oo marka hore intaan deyrkii aan la sameeynin in marka hore meel la isla dhigo halku maraayo. marka waa arrinkaas halku maraayo deyrku baa noo hadhan runtii kaana markuu dhamaado insha Allah caadi wax walba u socdo. maalintii shalay ahayd ayaa waxaa dalka Imaaraadka wasiirku ku soo saxeexay heshiis saddex geesood oo kaasi u dhaxeeyay Somaliland, Itoobiya iyo sidoo kale shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. waxaana heshiiskaasi saami gaadhaya 51% ku leh shirkadda DP World oo maalgelinaysa dekedda caalamiga ee Berbera, halka Somaliland ku yeelan doonto 30% arrinta maalgelinta dekedda Berbera saamigeega. dawladda Itoobiya iyo Somaliland la jaarka isla markaana la qorsheeyay inay tahay dalka ugu badan ee wax kala soo degi doona dekedda Berbera ayaa waxa laga siiyay saami gaadhaya 19%. waxaana saamigana xusid mudan inay ugu badan tahay shirkadda DP World oo ku leh 51% saamiga dekedda magaalada Berbera ee maalgelinta. Cabdiraxmaan Carab Daawud TV-ga Kalsan magaalada Hargeysa.